waxay doonayaan inay ummadeena bedelaan oo ay soo saaraan mid muxuu ahaayay nin reer Boorama ah oo muxuu ahaayay beelaha Boorama ka soo jeeda oo adin hebel u taqaani oo calankii Soomaaliland gacanta ku haya oo muxuu ahaayay Soomaaliland han noolaata leh oo laakiin gudaha ka ah ninkii samaystay waxyaabaha runtii badbaadiyay dad badan oo aan jeelka ku arkay waxa weeye xuska Allah waxa weeye si kasta xorriyad looga qaado oo eed kasta lagu sameeyo oo yaani qol yar lagu xiro oo lagu dul alifo waxa weeye quraanka Allah marka la hadlaysid Allah baad la hadlaysaa waxa weeye laabtu ku qaboojinaya akbar laab qaboojiya ugu weyn ee dasiya ugu weyn waa hadalka Allah waxaan doonayaa muxuu ahaayay halkan inaan ka salaamo saaxiibadeedii jeelka ilaahayna waxaan idinka baryayaa in muxuu ahaayay idinka soo saaro xabsiga samafalka waxay lagu soo koobay qof gaajoonaya oo cunto la siiyo ama dhaqaale oo muxuu ahaayay cunto ku iibsada la siiyo qof hooy raba oo hooy loo dhiso qof xanuunsanaya oo lala raadiyo dhaqaalihi caafimaadka iyo wax la halmaala inahaasa ayay badanaaba muxuu ahaayay ku soo dhacaysa dadka samafalka taas ku dhama samafalka ugu weyn ee aan aaminsanahay waxa weeye inaad u samayso samafal cid dulman qof dhibban oo maalan xidhan qofkii guduhu ku jira ma haysto cid u hadasha qof gaajoonaya tusaalahaan Boorama albaabka ugu horeeyo garaacaya jamaacad alkhayr waxa weeye reerka ugu horeeyo garaacaya siya bal nin jeelka ku jira aan mikrofon loo ogolayn oo aan muxuu ahaayay warbaahin loo ogolayn oo aan mobil loo ogolayn oo doonaya inuu kiiskiisa la sharaxo dadkaasi miyaan loo u baahnay samafal sidaan ugu baahnaa waxa jira haliso badan oo yaani muxuu ahaayay dad baa jira iyo dhinacyo iyo hay'ado iyo ashxaas hoos u shaqaysanaya oo burburinaya dhaqankeena iyo diinteena nolosheena qaybaha kala duwan yiraahdo waan danaynaa waan horumarinaa caafimaad baan horumarinaa waxbarashaan horumarinaa arrimaha ugu muhiimsan ay duulaanka u yihiin waxa weeye diinteena iyo dhaqankeena inay burburiyaan oo mamsuuqiin inaga dhigaan oo ay soo saaraan jiil yaani muxuu ahaayay muuqa Soomaali ah gudahana muxuu ahaayay afkaar lagu shubtay khatarta weyn ee nagu soo foolay waa taas qorshe u yaala 30 sano soo socda 20 sano soo socda 10 sano soo socda mid fog iyo mid dhowba waxay doonayaan inay ummadeena bedelaan oo ay soo saaraan mid muxuu ahaayay nin reer Boorama ah oo muxuu ahaayay beelaha Boorama ka soo jeeda oo adin hebel u taqaani oo calankii Soomaaliland gacanta ku haya oo muxuu ahaayay Soomaaliland han noolaata leh oo laakiin gudaha ka ah ninkii samaystay markuu cid fikir kala wadata ku barbaariso soo cidda fikirkeeda qaadanaysa waxa cidi kama hadasho wala xisbiya ka hadla wala qeyrkood ba ka hadla maanta oo dhan waxaan ku xiiqsanahay muxuu ahaayay halkan biyo kama jiraan iyo halkan wadda kama jirto iyo muxuu ahaayay waxa weeye kursiga reer hebel baa badan iyo reer hebel ku yar waxa soo dhan haris maaha hadday reer hebel wada qabtaan iyo haddii wadda la sameyn waayo war waxa weeye basharkii baa burburay البشر قبل الحجر إن بشر كالجوه الرياهي دت كذا لبربرونية ودوين كأنه إيجا إنه يكراسي ده إنه إيجا إنه دت كأني بقى لبربرونية عبد الرزاق يفرحان بالجربة إنه نقدان دت كله وأنا نقول عبد الرزاق إنه يفرحان كان أي هو يدي أبيه للدنيا